halkaan inaanu galabta ku soo dhaweyno wafdiga ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha gobolka Galmudug Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto oo ka kooban wasiirada iyo xildhibaanada iyo aqoon-yahanada kale waxaan kaloo rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo odayaasha guurtida Soomaaliyeed xildhibaanada wasiirada saraakiisha ciidamada qaybaha kala duwan ee bulshada ilaa maanta u taagnaa soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha hogaaminayo oo ka yimid xarunta baarlamaanka Galmudug ee Cadaado gudoomiyaha baarlamaanka golaha wasiirada xildhibaanada sharafta leh dhammaan saraakiisha ciidanka qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka ee Soomaaliyeed ilaa maanta taagnaa bahda saxaafadda dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib runtii waa sida wasiirku uu sheegay waxaanu ka nimid xaruntii baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ee magaalada Cadaado waxaan safar shaqo ku nimid magaalo madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho waxaan u nimid shaqo dowlad goboleedka Galmudug waxaan kulan la samaynaynaa dhammaan mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka ka soo jeeda deegaanada Galmudug ee ku nool caasimadda Muqdisho ujeeddadayadu waxaa weeye safar shaqo oo aanu kaga soconno dadkii aanu matalaynay ee dowlad goboleedka Galmudug waxaan rajaynaynaa isaguna inuu guul noogu dhammaan doono dadka yanana kulamo la samayn doono annagoo ka tarjumayna rabitaankoodii iyo baahiyadoodii iyo xogtoodii lana kulmi doona mas-uuliyiinta soo sheegay oo aanu kala hadli doonno arrimahaas runtii waxaan aaminsanahay inuu guul noogu dhammaan doono soo dhaweynta aad maantay ilaa galabta u taagnaydeenna qaybaha bulshada oo dhami oo odayaashii dhaqanka leh wasiirada xildhibaano leh bahdii saxaafadda leh waa ka hambalyeynaynaa waa dowladnimo waa ilqaan mas'uuliyadeed waa tixgelin mas'uuliyiin aad baan adinkana idinkaga mahad celinaynaa dhibka iyo taagnaanshaha iyo waqtigiin iyo howlihiin aad u baajiseen aad baan idinkaga hambalyeynaynaa bahda saxaafadda ee ku shaqaynaysa duruufo adag xilli adag marxalado adag la kulmaya dhibaatooyin badan u taagan danaha shacbiga si gaaraan idinkaga mahad celinayaa dib baan u kulmi doonaa shirarka iyagu waa dib xog waraysigu waa noo dambayn doonaa